عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برامجكينا كريبتو كارنسي halkani waa Somali MT4 waxyaabaha aan caawa kula wadaagi doono waxay kamid tahay Somali cryptocurrency ama Somali MT4 waxyaabaha kula wadaagi doono waxaa kamid ah sidee loo isticmaalaa coin market cap sidee ayaad u taxliilin kartaa coinka aad rabtid ama tokenka aad rabtid inaad lacag ka samayso cryptocurrency-ga iyo qaabka price-ka coin market cap-ka volume-ka supplierska tokenska sida loo kala qaybsaday contract-ga uu leeyahay coinka waxyaabahaas oo dhan ayaan falanqeyn doonaa halkan coin market cap runtii haddii aad fahanto qaabka loo isticmaalo yacni wax walba oo ku saabsan cryptocurrency ama aas u ah kuley waad fahansan tahay amase waad fahmaysaa maanta kadib lagagama sheekeyn doono coinanka hadda soo baxayo iyo coinanka trendingka ah iyo coinanka lagu khasaaro loseriska ah iyo coinanka kale oo gamerska ah sidoo kale waxyaabaha uu caanka ku yahay cryptocurrency waxaa kamid ah priceka suuqa cryptocurrency oo si sax ah oo kugu sheegay iyo sidoo kale coin walba meesha laga helo tusaale ahaan hadda bitcoin waxa ay maraysaa $106,000 halkani waxa waaye priceka ay marayso cryptocurrency markan 24 hour ku dhufano waxa kusoo baxayo priceyadii ugu dambeeyey ama coinankii ugu dambeeyey ee la xiiseynayay tokenski waxyaabihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey ee caanka ahay ama trendingka ah ayaa kusoo baxay 24 hour markaad ku laabatidne siday u kala sarreeyaan ayaa kusoo baxayso tusaale ahaan haddoo kale priceko kale markaan ku dhufano waxa ugu sarreyso bitcoin ayaa ugu sarreysa markaan laakiinse priceka aan taabano waxaa soo baxayo priceka noocyadiisa kala duwan sida mataqaanahay waxyaabahan ugu hooseeya laakiinse hadhow la xiiseynayo tusaale ahaan last week ama last days ama saacadihii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu badan ee 24 hours laga trade gelinayo waxaa kamid ah Kucoin token Lendo Gate token Jupiter Anda iyo Ethereum waxyaabahana kamid ah tobanka waxaa ugu jiro Kucoin token waa exchange sidoo kale wuxuu leeyahay token ayuu leeyahay sida wuxuu la mid yahay Binance-ga oo la mid ah tokenkiisa PNP ama Binance Trade aad taqaaneen exchange-daas ay la mid yihiin marka saaxiibayaal waxaan idinla wadaagayaa qaab ugu wanaagsan ee aad uga faa'iideysan karto coin market cap haddii aad login leedahay waa inaad login samaysataa ama haddaad lahayn waa inaad mataqaanaa loginkaad ah ku gashaa okay dabcan haddii aadan login lahayn waxaad ka isticmaalaysaa halkan waxaad ku xiraysaa gmailka ayaad kusoo xiraysaa gmailka ma kusoo xirtid halkan shaashadan ayuu ku keenayaa shaashadan qaybta ugu sareysa waxaa la trending ayaa lahaa trending coins coinanka la xiiseynayo ee trendingka ah ee socdo waxaa kamid ah Ethereum Solana Runo XCN iyo XR XYRO ayaa kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah trending on Dexcrane-ka waxaa kamid ah coinankan ayaa ayeen trending ah market cap-ka suuqa inta ugu badan ee lacag dhex taala market cap-kiisa waxaa kamid ah 3.66 trillion ala marwaya trillion xataa laga tegi marka waxyaabahaas oo dhan marka hadda aan ku dhufano trending waxyaabaha ah coinanka trendingka ah waa kuwaana oo dadku ay xiiseynayaan sidaas ay ku ogaanay tusaale ahaan haddoo kale Solana oo kale markaan ku dhufano Solana oo kale coinkan Solana ama tokenkan Solana xilligii la sameeyey xilliguu yahay yacni dabcan qof walba uu ogyahay xilliguu soo shaac baxay meelaha laga helo markaa rabtid coinka tusaale ahaan oo kale coin cusub oo kale aad aragtay coin market aad ku aragtay Solana oo kale ku dhufatay waxaa fiirinaysaa horta market markaa fiirisid waxaa fiirinaysaa exchange-da laga helo marketka laga helo Solana waxaa laga helaa intaanu market iyo in kasii badan oo boqolkiiba 70 market ah ayaa jiro ayaa laga helaa newska kasoo baxaya sida telegramkooda twitterkooda halkan ayaa kala socday communitygooda
okay. Yield waxaa ka mid ah weelaha yacni aan tokeniska lagu kala qaybsaday sida tokenka loo qaybinayo ama coinka loo qaybinayo. Tusaalahaan waxaa ka mid ah community-ga waxay leeyihiin boqolkiiba 29. Community-ga waxaa ka mid ah adiga, aniga, dadkan retail traderska maalinha trade-ka, kuwana tiimka shaqada wada waay oo ka shaqeynaya Solana. Kuwan waxaa waaye sida loo kala qaybsado waa foundationka, waxyaabahan dhan strategic roundika. Sidoo kale waxaa ka mid ah halkan waxaa ku jira waxyaabaha gaduudka ah ee halkan ka muuqda waxaa waaye locket. Waa token aan weli la soo dayin. Qaybo waxaa waaye aan weli la soo dayin. Okay, unlocked-kan waxaa furan boqolkiiba 91 ah furan. Boqolkiiba 8.61 way xiran tahay Solana. Maalinka la soo daayo suuqa gilgil ayaa ka dhacaya. Marka yaa ugu badan meeshan waxaa ugu badan community way ahaayeen kuwa blogga ah. Waa ujeedaa tiimka ayaa ku xigo. Yacni hadda waxaa la shaaf gareynayaa community ayaa hadda shaqaysanaya. Yacni socdo. Waxaa ku xigi doono ciidda oo mataqaanaa tiimka markay shaqaysanayaan. Waxaa ku xigo inflation. Waxaa ku xigo strategic. Waxaa ku xigo foldaterka. Waxaa ku xigo foundation kuwa aasay coinkan. Ayagana waxay haystaan boqolkiiba waxay haystaan inta ka fiirin karnaa waxay haystaan boqolkiiba 8 ayay haystaan. Waa inta yacni boqolkiiba 8.62 ayaa ah foundationska. Intana maxaa xiran boqolkiiba 61 ayaa xiran. Magarad marka seedka ayayna waxay haystaan boqolkiiba 12 ayay haystaan. Seedka waa kuwana seedka iyo community-ga iyo waxaa isku xiga inflationka ayaa ugu badan. Inflationka waxaa ugu badan iyo community. Okay, halkan marka ugu gudubno waxaan isla fiirinaynaa let's check. Waxaan isla fiirinaynaa coin cusub ayaan isla fiirinaynaa. Hadda coinkan waa la wada yaqaanaa. Okay, Solana wadi Solana waxyaabaha ay sameynayso projectideeda halkaas kala soconaysaa. Okay, haddaan back dhaho waxaan ku tusi doonaa coin cusub isla tegaynaa top 10ka kuwa ku jira ama top 100ka kuwa ku jira. Okay, tusaale ahaan waxaan isla fiirinaynaa Radium way kacsan tahay maalmahan. Hal bracekeedu wuxuu marayaa $8 ayuu marayaa. Radium hadda all higher timekeeda inta gaaraa isla fiirinaynaa. All higher timekeeda wuxuu gaaray 12 hadda kore usoo kocdo 12 haddii la gaaro already rajo fiican ay leedahay waad ka faa'iideysan kartaa hadda inta lagu jiro. Okay, market markaan fiirino Radiumka meesha laga heli karo waxaa ka mid ah Binance Radium oo waxaa jiro exchange asna ah. Kuwan waa waladyada Kraken ee waxyaabahaas jiro. Okay, newskeeda sida Twitterka waxyaabaheeda kale sida community-ga Telegramka warbixinada ay community ka soo qoraan halkan ayaad ka daawacan kartaa, halkan ayaad ka akhrisan kartaa. Okay, waxaan isla fiirinaynaa yield-ga marka coinka sida loo kala qaybsanayo ama tokenka sida uu yahay qaybaha u kala baxaya halkan aad ka akhrisanaysaan. Kulli hadda sidii Solana uma soo bandhigin yield-ka. Marka waxay soo bandhigayaan kulli wadi Radium, maxay tahay Radium iyo waxyaabahaas soo akhrisanaysaa. Tokenka markii inta aadan gelin ka hor ama inta aadan yacni aadan ku fududaan aadan lacag ka samayn maxaa muqasab ah inaad halkan soo akhrisid. Hadda contractigeeda waxay ku dhisan tahay Solana ecosystem-yada waxay ku dhisan tahay Solana iyo Ethereum Radium ay ku dhisan tahay. Waxyaabaha kale oo mataqaanaa trading-ka ah waxaa ka mid ah inaad la socotid suuqa. Marka trending-ka aad fiirisid hadda coin market cap oo kale trending-kiisa kale waxaa ka mid ah coin-ka ayaa ka mid ah. Tusaale ahaan hadda waxaan fiirinaynaa kan Ethereum Solana iska dhaaf. Runo kala fiirinaynaa. Runo ayna waxa weeyaan marketyada laga helaa fiirinaysaa Binance waxyaabahaas laga helaa. Sidoo kale waxaa fiirinaysaa markaad hadda fiirinayso sidoo kale oil health timekeeda waxay gaartay 14.25 ay gaartay. Market cap-keeda Runa wuxuu maraa 700 milyan ayuu maraa 736 milyan. Volume-keedana wuxuu maraa 986 milyan ayuu maraa. Okay,
market cap markii laga soo tago iyo volumekeeda it's okay. Yep, waxaa kaloo soo fiirineynaa tokenka unlock ah inta xiran iyo inta lasoo fulay. Tokenkan inta xiran waxaa xiran 65% ayaa xiran. Haddii mar intaas qalqalada laakiin loo soo deynayo lama soo wada deynayo siday la tahay. Hadda waxaa loo soo daayay seedka, waxaa ku xigo teamka, waxaa ku xigo private sale, waxaa ku xigo communityga waa ujeedin communityga waa intaan yartaa 21% ay marayaan. Sidoo kale Binance Launch okay, hadda waxaa shaqaysanayo ugu horeeyo seedka ayaa ugu horeeyo. Seedka sida ugu horeeyo qaabka ugu horeeyo waxaad ogaanaysaa hoos usoo bixaysaa. Waa kana tokenka qaabka loo kala qaybsado. Tokenka qaabka loo kala qayb communityga intii ku jiraan communityga waa calaamadan yartaa guduudka ah soo ma jeed communityga ku qoran waa calaamadan ma dhow communityga waxaa ka horeeyo teamka dhamaanayo waxaa ku xigo seedka dhamaanayo seedka hadda socdo markuu dhamaado next waxaa loo gudbaa teamka waxaa loo gudbaa private saleska waxaa loo gudbaa communityga waxaa u dambeeyo operationska iyo Binance Launcheska ugu dambeeyo. Okay, mid walbana saacadda la soo deynayo way ku sheegayaan yacni markaad newskooda iyo waxyaabahooda la socotid lacagtan ay u fiican tahay qofkii rabo u geli doonaa. Okay, halkaas haddaan tan uga gudubno already qofka ku qancaa uu iibsan karaa dabcan tokenka waxyaaba badan oo laga fiiriyaa jiro laakiin hadda aniga waa soo koobaya waxyaaba waxaan isla fiirineynaa yep telegramkoodana waa kana halkanaad ka fiirinaysaa. Anyway cashirka halkan maan ku ekeynaa. Next waxaan isla fiirineynaa cashirka dambe ee ah wabarakaatuhu. Next ayaan oblana fadlan akoonka subscribe saar saaxiibadan la share gareey mahadsanid.